Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cashirkeenan maanta wuxuu ku saabsan yahay magacyaalada luqadda Jarmalka kiisa ugu horeeya ee ah personal pronomen. Personal pronomenku waa magacyaalka qofka magaciisa. Matalan haddaad leedahay heblaayo hebel bay wax u sheegtay mise hebel hebel buu wax u sheegay, waxaad odhani iyaday wax u sheegtay isaguna isagu wax u sheegay. Tusaale ich aniga, du adiga, sie iyada, er isaga, es waxaa loo isticmaalaa sida matalan ilmaha Mädchen ama Kind iyo waxaan caqliga lahayn, wir anaka, ihr idinka, sie iyaka. Kaas wuxuu ahaa nominativekii. Haddana waxaan u imanaynaa accusativekii. Accusativku waa qofka ama shayga lagu samaynayo ficilka. Sidan buuna isku bedelayaa. Ich mich, du dich, sie sie, er ihn, es, wir uns, ihr euch, sie sie. Haddaba accusativekii waxaanan isbedelin. Sie oo ku joogta siideedii, s oo steedii ah iyo ziidii jamciga ahayd oo sie ah. Imikana waa dativekii oo ah magacyaalka verbiga dartii loo samaynayo. Sidan buuna isku bedelayaa. Ich mir, du dir, sie ihr, er ihm, es ihm, wir uns, ihr euch, sie ihnen. Dativekii markay isku bedeleenna waxa isku mid noqday er iyo s oo im wada qaadanaya dhinaca dativeka. Tusaale waxaan ka bilaabaynaa personal pronomen nominativkiisa waana magacyaalka qofka verbiga ama ficilka samaynaya sida ich gehe anu waan tegayaa, du gehst adu waa tegaysaa, sie geht iyadu way tegaysaa, er geht isagu uu tegayaa, es geht. Es waxaa loo isticmaalaa magacda artikelka das wadata. Marka waxay noqoni uu tegayaa ama way tegaysaa. Artikelkana af Soomaaliga kuma jiro. Wir gehen anagu waan tegaynaa, ihr geht idinku waa tegaysiin, sie gehen iyagu way tegayaan. U fiirso magacyaalkan waxay samaynayaan ficilka. Imikana waa personal pronomen accusativkiisa waana magacyaalka qofka verbiga ama ficilka lagu samaynayo. Tusaale er hat mich geschlagen isagu aniga wuu i dilay, ich habe dich gefunden anu adiga waan ku helay, du hast ihn gefragt adigu isaga ayaad weydiisay, er hat sie angerufen isagu iyada ayuu la hadlay also u telefoonshay, ich habe es gesehen anigu iyada waan arkay ama isaga waan arkay. Es sidaa marka hore kusoo sheegnay isma bedelayso. Du hast uns eingeladen adigu annaka ayaad na casuuntay, ich habe euch eingeladen anigu idinka ayaan idin casuumay, ich habe sie eingeladen anigu iyaka ayaan casuumay. Sie na isma bedelayso. Also u fiirso zaad kasta magaca uu ka bilaamayo isma bedelayo waayo waa nominativekii samaynayay ficilka. Laakiin ka kale ee ficilka lagu samaynayo uu isbedelayaa sida ich mich, du dich, er ihn, sie, es, wir uns, ihr euch, sie sie. Imikana waa personal pronomen dativkiisa waana magacyaalka qofka verbiga ama ficilka loo samaynayo dartii. Tusaale du hast mir geholfen
aniga ayaad i caawisay. Ich habe dir geholfen. Anigu adiga ayaan ku caawiyay. Sie hat ihm geholfen. Iyadu isaga iyay caawisay. Ich habe ihr geholfen. Anigu iyada ayaan caawiyay. Du hast ihm geholfen. Adigu isaga iyaad caawisay. Sie haben uns geholfen. Iyagu annakayna caawiyeen. Er hat euch geholfen. Isagu idinkuna caawiyay. Ich habe ihnen geholfen. Anigu idinka ayaan caawiyay. Haddaba u fiirso xarfahan aan hoosta ka xariiqay. Waxay asalkoodu ahaayeen xarfahan dhinacan bidixda yaala. sidaa daraaddeed kuwani dative bay ayay noqdeen. Dative-kuna saanu isku bedelayaa. mahadsanid. Videogan haddaad ka faa'iidaysatay kafaaltimiya ama like dheh. kuwa cusub saad ula socotidna abonniran dheh.